wiilkan ayaa helay taalo dahab ah oo ku jirtay biyaha. Wuxuu qaatay laan si uu ugu fidiyo taalada, laakiin markiiba laantii markay biyaha gashay waxay isku beddeshay dahab. Dahabkuna aad buu u cuslaa, sidaas daraaddeed wuu daayay oo biyihii ku dhacday. Kadib wiilkii wuxuu qaaday qolof badeed oo isna markuu biyaha geliyay wuxuu noqday dahab. Markaas ayay garteen in taalada dahabka ay ahayd qof dhab ah oo la beddelay. Dhanka kale, saaxiibkood kale ayaa isaguna helay khasnad dahab ah oo weyn oo ku qarsoon buuraha dhexdooda. Wuxuu noqday nin damac badan leh. Wuxuu bilaabay inuu si degdeg ah u aruuriyo dahabka. Markuu arkay jijin dahab ah, wuu u dhacay si uu u qaato, balse wuu yaabay markuu arkay inay ku taalo gacan skeleton ah. Si kastaba ha ahaatee, wuu ka siibay gacantaas oo uu xirtay, isagoo weli sii ururinaya dahabka. Laakiinse ma uusan ogeyn in qiiq madow ah oo yaab leh uu ka bilaabay meesha dahabka yaalay. Markii saaxiibadiis kale ay ku noqdeen markabkii, waxay dareemeen inuusan wiilka la joogin. Markaasay dib ugu laabteen si ay u raadiyaan, waxayna heleen dharkiisa oo ogayaal khasnadii. Iyaga oo ku soo laabanaya si lama filaan ah ayaa ugu soo baxay bahal weyn, mas duufaan ah oo wiilkii la duulay. Maskii ayaa la duulay wiilkii isagoo u qaaday buuraha. Waxaana yaab ku noqotay markuu arkay in maska uu magac wiilka ku gubay buuraha. Ugu dambeyn waxaa la ogaaday in saaxiibkoodii kale isu bedelay maskii markii uu xirtay jijinta sixirka ahayd.